camalkaagaad la dhaadhacaysaa maxaad wadataa maxaan wataa anigu maanta المؤمنين عائشة رضي الله عنها شدة قيامة مركو نبي جنو كورم عليه الصلاة والسلام أيه تري يا رسول الله مالك سر جوجا أيه وات كيسان كره يبي كتير من يقوى أيه كره يبي كتير كنت كنوا صندور مركب النبي يقول يا عائشة وفق مؤمن كإيمان كله إيه أدوية دوشة إله يكسو أضاعي والله فوديدين صلاة دفرت كأنت تكتان لك بابك قيام الله قد يجيبودي انتين تكون صلاة المغرب 6 دقيقة لبيه 8 دقيقة صدحيه 8 دقيقة مؤمن كإيمان كله إيه أدوية انتو جوجا كصاي قاتي إيه إلهي تبارك وتعالى أكتيس وحسير دكتي إيه آخرة كسر حساب تمي إيه تلابضو قاضي يبا إيه آخرة ديس هذا اللي كنتو كسوا بحين قفك مؤمن كا آخرة دو إيه دقاليه سينتو ننبحين آخرة دو إيه ماشو مريو آخرة دو إيه ماشا عنو السعودة ما مال آخرة ذي يقدر داوعي سبا مسوا مال آخرة ذي وحيد رئيسه هذا الجاي يقص صباحية ما هذا الآخرة ذي يقدر داوعي يبا أو نبي يجي سنة يهدو طاله مسوا هذا الآخرة ذي دعكوب بعدايو دقالهم بحنايو ما دقال آخرة ذي يكبا يبا أو آخرة كوب بعد يبا أو مال في عمو يقول دعيا مس آخرة ذي بود دقالها سيجا بعينيا أو كقب صداين تجوري قرطه مؤمن كو حساب تميع مؤمنك أدوية دوشيدا إلهي كسو أدعي كسو عابدي صلاة دايرة فردك أنت أتكنيي إن لعك بابنك قيام الله قد قيا dadkii ilaahay yaqaanay daraariya habeen aakhirada horta la yaka aakhiradu qofka haday horta la maxay ku aakhiradu kugu saameynaysa noloshaada aakhirada maxay kugu reebaysaa ma taqaana waxa doonta ku hadli kari maysid waxa doonta eegi kari maysid waxa doonta cuni kari maysid sida doonta u noolaan kari maysid waayo dareenka aakhirada qalbiga haduu galo dareenkaas xumaanta oo dhan ka joojinaya wanaag oo dhan ku diraya dareenkaas qofka qabanaya qofku inuu macsiyada waxa ka qabanaya waa dareenkaas waa iimaan weeyaan iimaan ilaahay rumee aakhirana rumee ilaahay rumee aakhirana rumee waa labada nabiyadu dadka ugu yeedhayeen nabi kasto adduunka la keenay umada ilaahay xaqiisu ugu yeedhay aakhiradan xaqeegu ugu yeedhay waxa ilaahay kaaga raali noqona waa iimaan iyo amal saalix waxa aakhiradaadu ku badbaadaysana waa iimaan iyo amal saalix maalmaha kamida ayaa nabigeenu kaleey salaatu wasalaam magaalada Madiina soo maray wuxuu arkay markaa saxaabada qaar kamida aqal yar oo cariish markaa ay dhisayeen markaa buu nabigu maxaad haysaan waxay yiraahdeen aqalkan baa soo yar duusayo waan la tiirinaynaayo waan la dhisaynaa markaa buu nabigu wallahi anu ma arko ilaa saacada ka degdeg badan buu ka yidhi saacada qiyaamada ka degdeg badan buu ka yidhi inta aqalka dhisaysaan malagii suurta afuufayay waa Israafiil alayhi salaam ayaa buuqi qaatay buu rasuulku yiri foonintii buu qaatay lugihiina uu kala fidiyay markaasuu sida u haystaa idan ayuu sugayaa idan saxaabada rasuulku hadalka markay maqleen waxayba moodeen inay saacadu bari ay dhacayso oo hadda suurta lagu dhifanayo markaas ay yiraahdeen yaa rasuulallah maxaan idhaana noo sheeg markaa buu nabigu waxa tiraadaan xasbunallahu wa ni'mal wakiil hada wallahi markuu aakhirada kala hadlaayo markuu jannada kala hadlaayo markuu naarta kala hadlaayo markuu qiyaamada kala hadlaayo dareenkoogu wuxuu ahaa si waxay jannada iyo naarta hadda ay arkayaan isha ku hayaan inakana maanta ma sha Allah dadka muslimiinta dareenkaas maanta waa nagu yar yahay illa man rahima rabbi mooyaane لأن قلبك وسامو بقلبك إن القلوب لا تزدأ كما يزدأ الحديد إذا أصابه الماء برتا حديدك بيوه هدي تابتان دحل بيكون ريبان بيوه قلبك بن آدم كنا دحل بو يشاء ها قلبك دحلينا يا
waxaan adeegaysa qalbigu saameynaya waxaanaad dhegaysanaysa qalbigu saameynaya waxaanaad ku hadlaysa qalbigu saameynaya waxaanaad ka fikiraysa qalbigu saameynaya waa afarta qasabadood ee qalbiga bini aadamka ku socoto weyn afartaas saabaatul qalbi bay culimmadu yidhahdaan waxaad eegto qalbigu galaa waxaad ku hadasho qalbigu galaa waxaad ka fikirto qalbigu galaa waxaad dhegaysato qalbigu galaa qalbiga daxalka maxaa lagaga biiyaa laba shay bay culimmadu yidhahdeen laba shay baa qalbiga daxalka lagaga biiyaa qur-aanka akhriskiisa oo la badiyo iyo aakhirado inta badan la sheego la xasuusto laga sheekeeyo labadaa maanta may nagu yaryihin mise way nagu badan yihiin ya qur-aanka akhriskiisiina waa nagu yaraaday aakhirada sheekadeediina waa nagu yaraatay bal sheekada aakhirada saxaabadu maskiidka intay ka qaadaan bay suuqa aakhirada kaga sheekaysanayeen dadka muslimiinta ee zamankan joogana sheekadii adduunyada intay ka soo qaadaan dibadda ayay maskiidka dhexdeeda keenayaan isbeddelka nagu dhacay eega suuqa masaajid suuqu lmuslimiina ka musallaahum buu yidhi cali bnu abi aalib suuqu lmuslimiin aswaaqda muslimiintu waa sida masaajidooda oo kala weeyaan sida masaajidda ilaahay loogu weynaynaayo ayaa zamankii nebiga suuqana ilaahay loogu weynaynayey sida maskiidka dhexdiisa ilaahay aan loogu caasiyaynin ayaa suuqoogiina ilaahay aan loogu dhex caasiyeyn innakana zamankeennan maanta sheekadii dibadda taallay ayaa laga yaabaa in la keenay maskiidka gudihiisa nin buu arkay nebigu calayhi salaatu wasalaam maskiidka dhexdiisa baylah ka yaboohinaya markaa buu nebigu yidhi ilaahay kuuma soo celiyey buu ka yidhi haddaad aragtaan buu nebigu yidhi nin maskiidka dhexdiisa baylah iyo baadi ka yaboohinaya waxaad tidhahdaan ilaahay kuuma soo celiye dhahada haddaad aragtaanna nin maskiidka dhexdiisa ganacsi iyo tijaaro ka dhex samaynayana waxaad tidhahdaan ilaahay kuuma barakeeye dhahada innamaa buniyat almasaajidu lima buniyat lahaa masaajidda wixii loo dhisay baa loo dhisay buu rasuulku yidhi nolosha masaajidda taalla bay culimmadu leeyihiin ayaa la rabaa in dibadda loo saaree nolosha dibadda taalla maskiidka in la keeno maaha cahdigii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam iyo cahdigii saxaabada dadka muslimiintu nolosha maskiidka ay ku haystaan ayay dibadda ula baxeen halkan ilaahay bay kaga baqeen dibaddana ilaahay bay kaga baqeen halkan ilaahay bay ku ammaaneen dibaddana ilaahay bay ku ammaaneen halkan aakhiraday ku weyneeyeen dibaddana aakhiraday ku weyneynayeen wallaahi siiraday ku taallaa cumar binu khadaab suuqa madiine intuu gala buu odhan jiray halkan ina fadhiisiya ilaahay saacadaha rumaynee kaalaya cabdullaahi binu cumar intuu u yimaado tufayl buu ku odhan jiray ina mar iraac buu odhan jiray xaggeen tagnaa suuqaan tagaynaa suuqa iyo way soo baxayeen haddana maalin kale uu yidhi ina mar iraac haddana maalin saddexaad buu yidhi iraac waa cabdullaahi binu cumar in cumar binu khadaab iyo tufayl oo taabici ahaa maalkaasuu markaa dhowr cisho markuu suuqii ku celceliyey uu ku celceliyey buu ka yidhi ya bnu cumar suuqa waadna geysaa maalin walba badeecadna kama soo iibsatid badeecadna uma iibgeysid badeecadna ma soo baayacdid meelaha dadku fadhiyaana nama fadhiisisid war halkan ina fadhiisi buu halkan noogu sheekee buu ka yidhi oo halkan diinta nagu bar sheekada saxaabadu diin bay ahayd markaa ibnu cumar baa ku yidhi waree kaagan caloosha buuran li innamaa naqdu min ajli asalaam waxaan u kala haynaa waxa weeyaan dadka inaan salaanno baan u kala haynaa buu ka yidhi assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu baan u kala haynaa waa duco weeyaan ducadaa baan u kala haynaa muslimiintaan u ducaynaynaa iyaguna way noo ducaynayaan boqol qof baan u ducaynaynaa boqolkaasi way noo jawaabayaan waa duco laga yaabaa boqolkaa awliye ilaahay intay ku dhex jirto in ilaahay ducadooda noo aqbalo salaada muslimiinta la siiye waa maxay salaanteennu assalaamu calaykum nabadgelyadii ilaahay iyo naxariistii ilaahay iyo barakaadkii ilaahay korkaaga ha ahaadaan kii kale muslimka waxa uu ku leeyahay adigana nabadgelyadii ilaahay iyo naxariistii ilaahay iyo barakadii ilaahay korkaaga ahaadaan buu ku leeyahay salaantaasaan la soo kala haynaa boqol qof baan salaamaynaa 200 qof baan salaanta ummadda salaamaynaa way noo jawaabayaan waxay garanayeen saxaabadu in salaanta muslimiinta ay la dhaxmareen ilaahay intuu u aqbalo inay nabadii helaan oo naxariistii helaan
oo barakadiina ay helaan inagu bagaashka iyo badaacadda iyo adduunyada loo kala lahaa mooyaane sunnaha nebiga loo kala lahaayoo lagu noolaan lagama dhadhacsana maanta salaantaasaa lagu dhargayaa cali bin abi aalib inuu yimid uu ka yidhi saaxib alciyaal baan ahay maciishadii baa igu adkaatay markaasuu yidhi lacallaka tanaamu bacda salaati alfajri buu ka yidhi malaha salaada fajr kadib ayaad seexataa buu ka yidhi markaasuu yidhi mayma seexdo lacallaka tamshi amaama man huwa akbaru minka sinan buu ka yidhi malaha qofkaa da'weyn markaad la socoto ayaad hor socotaa buu ka yidhi haddana hor martaa markaasuu yidhi may haddana markaad ducaysanaysid ma laga yaabaa inaad labadaada waalid ilaahay dembi dhaaf aanad u weydiin markaasuu yidhi haa markaa birtaa arsaaqadda kaa xidhay waa taas labada waalid ducada ku dar buu yidhi arsaaqadda way kuu furmiye meelaha innagu iminka wax ma ka egeegnaa yaa may salaanta dadka ay salaamayaan bay risiqa ka dhex arkayeen waalidka ducadiisa u ducaynayeen bay risiqa ka dhex arkayeen istikfaarta ay badanayaan bay risiqa ka dhex arkayeen salaatu duxaada ay tukanayaan bay risiqa ka dhex arkayeen salaatu duxaada cahdigii nabigeenna calayhi salaatu wasalaam waxaad moodaysaa salaad jamaca in la tukanayo masjidka zaxmadda iyo cidhiidhiga ka dhacaya diintan ilaahay nooma siinin keliya inay aakhiro manfacadeedu nooga bilaabanto bal ilaahay diintan waxa uu noo siiyey inaan adduunkan iyo aakhiro aan ku dhargno ku libaano marka noloshan adduunyada intaan haysano waa fursad yaanan dayicine adduunyada diinha ka qaadanno diintana asaaskeegu waa iimaan iyo yaqiin weeyaan yaqiin iimaanku waa maxay ilaahay rumee yaqiintuna waa maxay aakhiradu ha kula weynaato wallaahi hadday aakhiradu inala weynaato dhaqankeennaa toosi oo risiqeennaa xalaal noqon oo mujtamac oo dhan baa isbedeli waayo laanna mujtamacii waxay noqonaya mujtamac aakhiro ku xisaabtamaya sidii labadii nin ee xadiiska nebigu noogu sheegay fi sunan nin baa nin dhul ka iibiyey dhulkii markuu gatay waa dhulbeereed buu ahaa uu falay markaa khasna dahabaa markaa uga soo baxday jarra min adahab uu qaatay uu la ordo ninkii lahaaba uu keenuu ka yidhi war dhulkaad iga iibisay dahabka intan leeg baa ka soo baxee malaha waad ilowsaneeda iga qaada buu ka yidhi markaasuu yidhi may anigu kuma ogeyn adaa ilaahay kaa siiyey adaa iskale iska qaada buu ka yidhi war waxaan adigaa le iga qaado innaga zamankeenna waa maxay war waxaan anigaa le isii weeyaan teen waxaan ku dagaalamayno dhulkan anigaa le gurigan anigaa lahaa meheraddan anigaa lahaa waxaan anigaa lahaa baa isku haysannaa iyaku waxay taagnaayeen dadku markay hagaageen war waxaan adigaa le iga hoo iyo kaa qaadan maayo may ma dhici karto may adaa iska leh adaa ilaahay ku siiye iska qaado may dhulkan adaa iga iibiyey malaha waad halmaamsantahe adigaa iska le iga qaado waxaan malihi anigu yahay lacagta intan leegna anigu kuma siine may labadii nin intay isqabsadeen bay maxkamadda tegeen maxay isku haystaan kan wuxuu leeyahay xoolaha nin kalaa leh ha iga qaato kanna wuxuu leeyahay war maliye isagaa ilaahay siiyey ha iska qaato qaadigii markaa qaadi fiican buu ahaa qudaadda zamankan laga yaaba inay odhan lahaayeen xoolaha dawladda ale iska keena qaar baa iska fiican way jiraane laakiin kuwadda waxaa iska jira dawladda u shaqeeya moogtaa xoolaha dawladda iskale iska keena halka ka baxay ninkuna mu odhan wuxuu yidhi adu maxaad leedahay ubad wiil adiguna gabadh labadaa isku guuriya labadaana xoolaha siiya buu yidhi bal fiirso islaaxu waa cajiib halkaa hadday islaaxdo waa cajiib halkaa hadday xumaato laakiin dhegayso qisad kale saddex nin baa nebi ciise raacday calayhi salaam siday ula socdeen ayay yimaadeen meel bannaanka uu dahab ku yaallo dhaymanku markaasuu nebi ciise ku yidhi waxaan waa dhayman waa dahab waa jawharad markaasay yidhahdeen noo qaad markaasuu nebi ilaahay soo diray iyo adduunya meel ma wada marta buu ka yidhi markaasay dee anna kaa qaadanayna dee haddaad qaadataan i raaci maysana waad iga hadheen ogaada buu yidhi diin iyo adduunya isma raacda buu ka yidhi waa nebi zaahid waa nebi ciise calayhi salaam
saddexdii nin way ka hadheen baa la yidhi nebigii ayaan darrada eeg markaasay dahabkii qaateen way la socdeen way la lugeeyeen magaaladii markay u dhowaadeen bay yidhaahdeen haddaan maalin galno waa la naga dhici habeen han ku beegno laakiin waa gaajoonaynaa way tashadeen waxay yidhahdeen laba dahabkaas sii ilaaliso midna magaalada intuu tago cuntahay noo soo qaado yuuna cidna inoo sheegin waa hagaag kolkuu ka dhaqaaqay labadii dahabka ku hadhay ilaa shaydaankiiba dhiigga bini aadamka dhex socdee ayaa wuxuu yidhi mid walba midka kaluu ku yidhi dahabkan labadeennu buu nagu fiican yahee ninkaa markuu yimaado aniguna waan la hadlay waan jeedin adiguna midida halkaa ka geli maydkiisana bahosha han ku ridno han ku aasno dahabkana labadeennu han kala qaadanno marxaba kiina uu sii socdaa shaydaanka isagana dhiiggiisii ku dhex jiro wuxuu ku yidhi dahabkan adigoonbuu kugu fiican yahee cuntada intaada soo cun ayakana u soo sumee markay dhintana dahabka iska qaado maxaa ka dhacay kula tahay meeshaas uu yimiday cuntadiibuu u dhigay isagii bay khaarijiyeen cuntadii bay cuneen iyagiina way iskhaarijiyeen nebiyullaahi ciise calayhi salaam ayaa soo maray dahabku halkii yaalla iyo saddexdoodii oo mayda markaasuu xawaariyiintii ku yidhi adduunyadii ubadkaygu sidaas ku galeen eega buu ka yidhi waa kaas halkaas halka laga hagaagaa waa qalbiga halka laga xumaadana waa qalbiga inna fi ljasadi mudqa idaa salaxat salaxa aljasadu kulluhu wa idaa fasadat fasada aljasadu kulluhu alaa wahiya alqalbi buu nebigu yidhi calayhi salaatu wassalaam waryaada buu nebi maxamed uu ina leeyahay dhegay jidhka bini aadamka waslad baa ku jirta hadday hagaagto jidhkoo dhan baa hagaagi hadday baanaatana jidhkoo dhan baa baanaanoo xumaan taasina waa qalbiga buu rasuulku yidhi qalbigana wax kale ma hagaajiyaan qalbiga lacag ma hagaajiso qalbiga waxa kaliya hagaajiya waa markay degto ilaahay macrifadiisu macrifatullah Uthman bin Affan Allah raalli ka noqdee addoomihiisii addoon ka miduu u yeedhay maalin wuxuu yidhi lacagtan qaad Abu Dar al-Ghifaari u gee hadduu lacagtaa Abu Dar hadduu lacagtaa kaa qaatana xor baa tahay buu ka yidhi xor waan ku xoreeyey Abu Darna markaa magaalada Madiina dibaddeedu deganaa ribda meel la yidhaa oo Uthman bin Affan baa ku yidhi halkaa u guur adigu waayo waa nin zaahida buu ahaa qarnigii nebigaad mooddaa inuu joogo isagu dadkan taabiciinta ee diinta ku soo gadaal dambe ka yimid ay adduunyadii la yimaadeen oo dhanna uu nafinaya isagu dharkii nebi maxamed uu kaga dhintay buu sitaa weli cariishkii nebi maxamed uu ku ogaana uu galaa cuntadii cahdigii nebiga la cunayana weli uu cunaa isagu Abu Dar al-Ghifaariyi radiyallahu canhu marka ninkii addoonka ah lacagtii buu la soo orday meesha ma soo dhigan nin baa lacag diidi kara soo sidaa maaha indee ma nin baa lacag diidaya waa iska jecel lahay uu yimiday uu salaamay wuxuu yidhi amiirkii mu'miniinta Uthmaan baan salaan kaaga sidaa waan ka qaaday bal waran isaga ka waran daar alkhilaafa ka waran masjidkii nebiga ka waran muslimiinta xaalkooga ka waran markuu uga warramay ayuu yidhi lacagtana uu ii soo dhiibo wuxuu yidhi Abu Dar u gee lacagtaas markaasuu yidhi maxaan ka dhigaa wuxuu yidhi dee ha u kaalmaysta adduunyadiisa markaasuu yidhi u celiyo waxaad ka tidhaahdaa anigu uma baahniye cid iiga baahi badan baa Madiina joogtee ciddaasii ka dha buu yidhi innaga maanta lacag nin diidi karaa uu yar yahay maanta zamankan waayo waxay naga dhaadhacsan lacagtu waxbay tartaa iyaga waxaa ka dhaadhacsanayd may lacagtu wax ma tarto ka wax taro waa ilaahay baahidayda ilaahay baa ii daboolaya xaajaadkayga ilaahay baa ii quminaya waxaan u baahanahay ilaahay baa ii haya cid kale wax iima hayso lacag uma baahni baa ka dhaadhacsanayd iyaka laakiin ilaahay amarkiisaan u baahanahay ducaan haystaa salaad baan haystaa istikfaar baan haystaa quraan baan haystaa acmaal baan haystaa qalbiguna wuxuu ku xasilaya waa diin weyn adduunye maaha markaasuu ninkii yaabay war iska qaado may u celi markuu arkay inuu ninkan lacag uunan u jeedin uu qaadanayn ayuu runta u sheego wuxuu ku yidhi amiirka wuxuu igu yidhi hadduu Abu Dar lacagtaa kaa qaato xor baa tahay buu igu yidhiye ar walaal addoonnimada han ka baxe i xoreeyo lacagtan iga qaada buu ka yidhi
markaasuu kaa qaadan maayo waxaad doonta akhri markaasuu origa qaado oo ii naxariiso maxaan kuugu naxariistaa haddaad lacagta iga qaadato waan xoroobay buu ka yidhi wuxuu ku yidhi abudar dhegayso hadalkuu ku yidhi eeg haddaad adigu qaadashada lacagta aan kaa qaaday aad ku xoroobayso anna addoon baan ku noqonayaa buu yidhi marka halka adoo aad ka baxday inaan anu galo ma jecli buu ka yidhi anuu addoon xor aan ahay buu yidhi xor bas uu yaabay ninkii lacagta isagoo wadu cusmaan u keenay wuxuu yidhi waad ogeyd markaad igu lahayd hadduu lacagtaa kaa qaato xor baa tahay waad ogeyd ninkan inuu yahay nin aakhiro nin adduunye u jeeda maaha abudar alkhifaari lacagta dhaliili mayno ha shaqaysan qofka muslimka lama leh laakiin adduunyada gacantaa ku hayso diintaadii aakhiradaadana qalbigaaga ku hayso maanta adduunyadii iyadaa maanta adduunyadii nafuushay saxaabadu adduunyada sida faraska loo fuulo ayay u fuushanayeen iyaku adduunyada iyakaa fuushanaa innakana maanta adduunyadii bay nafuushay maanta waa ka tukan kari laanahay diintii baan ka baran kari laanahay diinteenni wakhti ku bixiya bay culimmadu leeyihiin wakhti waa ku bixin kari laanahay maxayna haysta waxayna haysta waa adduunyo adduunyada maxay kula doonaysaa adduunyadu inaad iyada la joogto bay doonaysaa hayga tagin bay adduunyada ku leedahay lamana nacayo adduunyada ha ka shaqaysan laguma leh ka shaqayso xalaal mirad noqo laakiin waxaad ogaataa adduunyadani waa balaaq aakhire ku gaadh mooyaane iyada ha ka dhigan hadafkaagii aakhirada ayayna kaala weynaan cusmaan binu cafaan allah raalli ka noqdee nin baa nebigu u yimid oo yidhi gabadh baa lay siiyey waxaan ku aqalgalana ma haysto cusmaan u taga buu ka yidhi markaa buu u yimid cusmaan binu cafaan wuxuu arkay cusmaanoo khaadimkiisa ku haysta dubaaradan faynuuskan maxaad u baktiin weyday markaasuu ninkiiba uu yaabo wuxuu yidhi ninka khaadimkiisii ku haysta faynuuska maxaad u damin weyday may kula tahay inuu adiga lacagtii aad gogol iyo dhar iyo weelal islaanta caawa aad caroosadda aad ugu iibin lahayd inaad ka heli ilama abuu yidhi iska kacay cusmaan baa ninka u yeeray war kaale xaggeed u socotaa wallaahi dee waxaan u socdayba war kale ahayd war kale aan meesha ka socday buu yidhi markaas maxaad aragtayoo maxaad u socoto dee nebiga ii kaa soo diray buu yidhi sal alla alay slam oo yidhi cusmaan u tago waxaad ku tidhaahdaa waxau nebi maxamed ku amray wixii caawa aan carooska iyo reerkayga aan ku aqalgelin lahaa hadday gogol tahay hadday dhar tahay hadday biil tahay hadday weelal tahay cusmaan ka qaad buu nebigu igu yidhi de maxaad u kacday bood igu sheegi weyday de waxaan arkayaa ninkaaga faynuus ku dagaalamaya wax bixinaya buu yidhi faynuus baad ku dagaalamaysaa ood ku haysataa khaadimkaagiiya wuxuu yidhi dhegaysa buu ka yidhi faynuuska halkaa iska shidmaayey shaqo adduunye iyo shaqo aakhire midna laguma hayn laakiin tan adiga ku siinaayo waa tii halkii loogu talagalay ku baxday hoo qaada buu ka yidhi kiish lacag uu dhiibay israafka iska ilaalinayeen xoolahooga meeshay ilaahay ugu talagalay ku bixinayeen meesha ilaahay u diidayna xoolahooga way ka ilaalinayeen innagana caroos baa lagu leeyahay $30,000 bay ku bixiyeen caroos $30,000 bugbac fanaaniin baa loo yeedhay fanaaniin maxaa ka dambeeya laba reerka bugbac iyo macsiyo lagu dhiso 2 bilood ma gaadhaan way kala duulaan ilaahay uu kala qaadaa markiiba laana marka hore macsiyo lagu dhisay diin iyo alla ka cabsi laguma dhisin israaf baa lagu dhisay baatil baa asaas looga dhigay muslimku war muslimku dhaqaalihiisa xor uma tijaaradaada xor uma tihid waa inaad xataa cilmi albayci washiraa culimmada kaalayo weydii cumar bnu khataab suuqa madiina intuu galuu odhan jiray laa yabic fii suuqina haada ilaa man tafaqaha addiin waryaada suuqayaga nin wax ku iibin karaa ma jira buu cumar odhan jiray ilaa nin masjidka nebiga intuu tegey cilma albayci washiraa culimmada ka soo bartay mooyaane innagana maanta cid walba ganacsi bay bilowdo china iyo tayland baa laga wada duulay habrihii baa socdoo kule china u socotaa xaggeen u soconnaa war muumin waxaa la doonaya inaad noqoto muumin labada indhood ee kugu taalla ilaa adduunyadaada ku eego ilaa aakhiradaada ku eego aakhiradaada iyayna adduunyada ku seejin
adduunyadani waa in yar waxaan joogaynaa in yar walaalayaal intaa yar een joogno ilaahay ha kaga baqno oo diin ha ka qaadanno oo diinteenna han baranno oo diinteenna ha ka shaqayno oo zaman adag baa lagu jiraa zamankeen lagu jiraa almutamassiku bidiinihi kalqaabidi cala aljabra buu nebigu yidhi waa zamanuu nebi maxamed sii sheegay 1400 oo sano ka hor ninka diinta maalinta idhahda waan xajisan waxa uu ka dhignaan doonaa nin dhamac loo dhibay buu rasuulku yidhi bulshadaad ku nooshahay maanta eeg waa mujtamac khayrkoogu yaraaday sharku batay meeshaad u baxdaba ishaadu waxay ku dhacaysaa ma wax ilaahay ka farxiya mise wax ilaahay ka cadhaysiiya mujtamac waa mujtamac qofku hadduu yidhahda maanta sunnaha nebiga ku fara adayg way adkaanaysaa inuu qabsado ilaahay u dhib yareeyo mooyaane marka zaman adag baan ku jirnaa waxaan kaga badbaadaynaa waa maxay rujuuc ila diin inaan diinteenna u soo noqonno oo dadaalka diinta ay culammadu mar walba inoogu baaqayaan ee masaajidda laga naadinaayo ee maraakista laga naadinaayo ee madaarista laga naadinaayo ee ijtimaacyada loo qabanayo ummadda loo fikiraayo war dadaalkaa diinada maanta caalamka ka socdaa la rabaa caamadeennu inay culammada intay garab joogsato aan meel keliya u wada jeesanno insha allah dhahada taama guddoonnaa dadaalka diinta mise dhegaystayaal wanaagsan baan noqonnaa yaa dhegaysto wanaagsan waxaa ka wanaagsan dhegaysigu waa min addiin weeyaan laakiin waxaa la inaad noqoto adiga laga rabaa inaad diinta qaybtaada oo ka qaadato waad ka qaadan kartaa saxaabada rasuulku nin walba salaaxiyaddii ilaahay uu geliyey ummaddu ku anfacay kii cilmi lahaa cilmigu ummadda wax ku taray kii dhaqaalo lahaa dhaqaaluhu ummadda wax ku taray kii raganimo lahaa raganimadu ummadda wax ku taray kii wajaahad lahaa wajaahaddiisu ummadda wax ku taray عثمان بن عفان عمر بن نبي قدري مكة مركز صلح الحديبية وكا عذر دارتي عمر وعد انيغا مي بيقول عثمان باكو مناسبة بيقولي عثمان باكو مناسبة عثمان بن نبي قدري دل ورنتي عثمان ادو تق خالد بن وليد جيس النمدي الرغنمدو لها ummaddu wax ku taray maalintuu soo islaamay buu nabiga seefta u keenay seeftan iga qaba buu yidhi ilaahayna dambi dhaaf ii weydii maxaan kaaga qaadaa seefta ii sheeg intaasoo muslimiina ku laayay buu ka yidhi kaa qaadi maaye intaad muslimiin ku laysay in ka badan inaad cadowga ilaahay ku laysaan kaaga rajayne qaada buu yidhi seeftoo ilaahay diintiisa u jihaad waa raganimadiiba xagga kale loo bedelay bas kii caalimka ahaa cilmigu ummadda ku anfacay kii dhaqaalo lahaa dhaqaalihiisu ummadda ku anfacay zamankii nabigeenna calayhi salaatu wasalaam waxa uu nebigu diyaariyey ummad nin walba salaaxiyadda ku jirta loo isticmaalayo diinta dadaalkeega marka innakuna kulligeen insha allahu tacaala khayr baa inaga muuqda khayr jacayl baa inaga muuqdee dee insha allah dadaalka diinta dhinac kastaba dadaalka diintu waa leeyahay wallaahi waan runtaan inii sheegi macallinka qur-aanka dhigaya dadaalka diinta qaybtiisiibuu ka hayaa sheekha masaajidka darsiga ummadda marinaya dadaalkii diinta qaybtiisiibuu ka hayaa jamaacadada ilaahay dartii u socda qaybtoodii bay diinta ka hayaan muxsinka dhaqaalihiisa masaajidda ee madaarista ku dhisaya diinta qaybtiisiibuu ka hayaa qofka muslimku diinta intuu ka qaadan karo uu ka qaadan karaa wactasimuu bixabli illaahi jamac baa la sheegay jamac hal nin kastoo muslima diintaasi wax waad u qaban kartaayo war u qabo كلمة ونكسب ونبي يقول صدقة كلمة ونكسب طريقة مسلمين تو أيمران نكي كجو يجيت كبو نبي يقول ها جنة وقلب الرسول كيقول جنة أكو أركب يقول هو نيدي مسجد النبي مرق الله قدر إيمان يسي كقاعدة يسي مارك تاني واحد مسجد النبي كود عطيه كقاعدة يسي مرق دمتينا والله قريو النبي قال له مشينا والله عاصي مرق أبو النبي يقول جنة أكو أركب يقول جنة أكو أركب jannada aan ku arkay maxaad iigu sheegi weydeen buu nebigu yidhi khayrku yaryaraysi ma leh marka waan inagu dheereeyey insha allahu tacaala wixii wanaag iyo khayr soo dhex marana ilaahay bay soo dhex mariyey anigana miisaanka xasanaadka allah ii saaro ikhlaaskana allah noo wada ziyaadiyo culimmadana soo dhaweysana waxaan leenahay jazaakum allahu khayr sheekh maxamed waxaan leeyahay margeysaan u marti kuma hiya waan deganahay يا
دقناها ما شاء الله عيالك ريركي ودنبا جوغا مركا الله أنا نقوى ذرع لنقض كل جين هذا وصلى الله على سيدنا محمد. بسم الله الحمد لله ثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك